kulan wacan oo wanaagsan halkani waa Beered Sports Media. Waxaad ku soo dhawaataan muuqaaladani ciyaareed oo aan si maalinlaha idinkugu soo gudbino. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kama dambaysta tartanka African Cup of Nations oo caawa la ciyaari doono. Ku soo dhawaada. waxaa caawa la soo gabagabeyn doonaa tartanka qaramada qaaradda Afrika ee African Cup of Nations loo yaqaan. Tartanka oo si xiiso leh uga socda dalka Masar ayaa caawa la soo gabagabeyn doonaa. Xulalka Algeria iyo Senegal ayaa isku arki doona kama dambaysta tartankan, kuwaas oo awood soo muujiyay intii uu tartanka socday. Algeria iyo Senegal ayaa hore isugu soo arkay heerkii guruubyada ee tartanka, waxayna guusha 1-0 ku raacday xulka Algeria, halkaas oo Algeria ay kaalinta koowaad uga soo baxday gruubka C oo iskula jireen Senegal. Balse caawa way ka adkaan doontaa ciyaarta midii gruubyada maadaama ay ciyaartu tahay kama dambays. haddaan yaro milicsado bandhigyadii xulalkan ee tartanka, Senegal qorituurka waxay nasiib ugu yeelatay inay gruubka C ka mid noqoto, waxaana ku weheliyay xulalka Algeria, Kenya iyo Tanzania. kulankeedii koowaad waxay wajahday xulka Tanzania, guuldaro 2-1 ah ayayna ku dhufatay. Keita iyo Diatta 2 gool ay ka kala heleen ayayna ku guuleysatay. kulankii labaad waxay wajahday Algeria oo ay caawa wajahayaan, balse nasiib daro 1-0 ayaa looga adkaaday xulka Senegal. kulankii saddexaad oo ahaa kulankii go'aaminayay in Senegal gruubka ka soo baxday iyo inay hartay ayaa waxay wajahday xulka Kenya, guuldaro 3-0 ah ayayna dhabarka u saarisay. goolal ay ka kala heshay Sarri iyo 2 gool oo Maana ah. wareegga 8 dhamaadka ayay u soo gudubtay, waxayna is arkeen xulka Uganda 1-0 ayayna uga guuleysatay. afar dhamaadka waxay wajaheen Benin oo 1-0 uga adkaadeen. bardhamaadka Tunis ayay 1-0 uga adkaadeen waqti dheer oo lagu daray ciyaarta kadib. sidaa ayayna ku gaartay kama dambaysta tartanka African Cup of Nations. Algeria hadda eegno, Algeria waxay ka mid ahayd gruubka C, waxayna ku wehelinaysay xulalka kubadda cagta ah Senegal, Tanzania iyo Kenya. kulankeedii koowaad Algeria waxay wajahday xulka Kenya, guuldaro 2-0 ayayna biday. Bundijah iyo Mahrez goolal ay ka kala heshay. kulankeedii labaad waxay wajahday xulka Senegal, 1-0 ayayna uga adkaatay. kulankeedii saddexaadna waxay 3-0 ku dhufatay xulka Tanzania, sidaas ayayna 9 dhibcood uga soo gudubtay gruubkeeda kaalinta koowaad. wareegga 8 dhamaadka waxay ku beegantay xulka Guinea, 3-0 ayayna uga gudubtay. afar dhamaadka waxay is arkeen Ivory Coast oo ahayd xul aad u adag, balse 90 daqiiqo 1-1 ayaa la isku mari waayay. gool kulaadyo 3-4 ayayna ku awood sheegatay xulka kubadda cagta Algeria. bardhamaadka ama semifinalka waxay wajahday Nigeria oo iyadu ka mid ahayd xulalkii loo saadaalinayay tartankan, waxayna 2-1 uga soo gudbeen xilligii dhimashada gool Riyad Mahrez oo u dhaliyay xulkiisa. sidaa ayayna kula mataanowday xulka Senegal inay wada ciyaaraan kama dambaysta tartanka. awoodaha labada xul haddaan eegnana, labada xul waxaa horkacaya tababarayaal aad isku yaqaan oo yaraantooda ku soo wada koray magaalada Paris, islana ciyaari jiray yaraantoodii. waa Aliou Cisse iyo Jamal Belmadi. dhanka kale, xidigaha hogaaminaya weerarka labadan xul waa 2 nin oo aad isu garanaya, haddana xifaalo badani ay ka dhaxayso. waa Mahrezka City iyo Maanaha Liverpool. ma kala awood yara labada xul, inkastoo Senegal ay caawa weynayaan Koulibaly oo ah derbiga xulkan, balse Coyote ayaa caawa mas'uuliyadda qaadi doona. taariikhda ay tartankan ku leeyihiin labada xul, Senegal waxay doonaysaa inay ku guuleysato AFCON ama African Cup of Nations markeedii ugu horeeyay, iyadoo finaalaha timid 1 jeer oo hore, waxayna 2002 guuldaro kala kulantay kama dambaystii tartanka xulka Cameroon. Algeria iyadu waxay indhaha ku haysaa inay markeedii labaad hanato tartankan oo ay iyadu hore uga guuleysatay sanadii 1990. kama dambaysta caawa waxaa martin geli doona garoonka Qaahiro International
Stadium ee magaalada Qaahira waxaana la baasan doonaa 10 habeennimo xilliga Geeska Afrika.